kula wacan wanaagsan idil ahaantiin bay khiyaarta wada nagala xidhiidhay meel kasta oo dunida ka joogtaan waa mar kale iyo xubinteeni faaqidaada waxaana daawadayaal barnaamijkeena diirada ku saari doonaa warar kooban oo ku saabsan dhanka Jubbaland iyo waliba dawladda federaalka ee Soomaaliya qodobada aad ku maqli doontaan waxaa kamid ah sargaal sare oo uu hadlay ciidamada Itoobiya ee ku sugan gobolka Gado ayaa sheegay inay guluf colaadeed iyaga iyo shacabka deegaanadaasi ku sugan ay kala hortagi doonaan haddii ay dhaqdhaqaaqyo sameeyaan ciidamada dawladda ee dalka Soomaaliya waxaa kaloo daawadayaal barnaamijka aan ku qada dhigi doonaa ra-iisul wasaaraha dalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa si adag waxa uu uga hadlay xaaladda ka taagan deegaanada Jubbaland iyo waliba khilaafka sii xumaaday ee u dhaxeeya maamulka Jubbaland ee dhawaan xilka laga qaaday iyo waliba dawladda uu hogaaminayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ciidamadii ugu faraha badnaa ayaa 72 saac ugu dambeysay waxa ay gabi ahaanba ku qulqulayeen dhanka Raas Gamboni iyadoo la tilmaamay in ciidamadaasi ay gaadheen deegaanadaasi sidoo kalena ay la hadleen ciidamada kale ee ku sugan deegaanada Jubbaland hadaba qodobadaasi iyo qodobo kale oo ku saabsan gabi ahaanba dalka Soomaaliya ayaynu daawadayaal ku qada dhigi doonaa barnaamijkeena waxay kala qayb gali doonaan ninka inta badan ka faalooda xaaladaha dalka Soomaaliya waa Suldaan Gooni iyo waliba shide oo aan wax ka weydiin doono hadduu rabbi idmo barnaamijka si shargaraya saaxiibadiinana la wadaaga aan ku soo dhaweey marka hore stuudiyaha Suldaan Gooni ku soo dhawow waa dhawa mahadsantaa Fargud waxaynu ku bilaabaynaa hadalkii balkan Itoobiyaanka inoo dambeeyay gablamahaas hadalkan ra-iisul wasaaraha dalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre khudbad dheer buu jeediyay meelo badan bay taabanaysaa maxaa kaaga baxay dalkaas horta Xamse Cabdi Barre wuxuu ka hadlay maanta meesha xarunta naafada oo markaasi dadka ay isugu yimaadeen oo naafada iyo xildhibaano iyo wasiiro iyo dad badan ay kasoo qayb galeen maalinta naafada adduunka wuxuu sheegay in horta markii la yiraahdo Jubbaland inay ciidamada reer Jubbaland yihiin ciidamo geesiyaal ah oo ayagoo baahan aan dadka shaxaadin dhaqaalana aan qaadanin mushaar la'aanna ah dhibaatana ku jira u dulqaatay ciidamo u dulqaadka badan Soomaaliya inay yihiin wuxuu sheegay ayagoo dhibaatadaas ku jira haddana in maanta ay garteen inaysan walaalahood la dagaalamin oo qaar badan oo kamid ah ay dhanka dawladda u wareegeen wuxuu kaloo sheegay in dagaalka loo bedelay arrinta hadda dagaal laga dhigayo ama qabiil laga dhigayo ama si kale loo fasirayo inaysan ahayn ciidamada admisa jooga jiro Raas Gamboni iyo Eridaas Kulbiyo wixii u dhaxeeyay Badhaadhe ciidamada waxa jooga jiro dhaha Kenya waxay markay ka baxeen waxay codsadeen 2 bilood waxay codsanayeen in ciidamo la keeno Jubbaland Axmedow oo ka dhagaaday oo yiri ciidamaan geen halkaas ma hayno yiri markuu saas yiraahday أنه حير هذا الدولة فيرق الصومال عص أصدرين مركز أصدرين قدوم ياشي أنا قلنا أساسا عيدمة كوجينة عيدمة مركان جينا وحلو بدلوا يرى أن قبيل وأكواد عيدمة أنت دوما لو قري للي راس كمبوني صوت ارتلع عيدمة دولة مركز حير أرنت قبيل كلا قد إيه بدلي إيه السياسة ذينا هرت مجرته أن عيدمة السياسة وحنا معناها وباقية إن سووا له دجال لجل أو دجال مش مية الدولة أنت صواب حدا جبلان برونيس أما كسماي ورس مجرته مركز أرنت ولا مرن حباب يوليه لكن حسيت ماشي كجرت مثلا مدة كلا أمرك أحمد أبي ديارده هو برمانت والديارده يرجع كبر متيكران حتى الديارده كنت ترى كبر سعدا تطلب حتى كدكت مقال كده حتى ولا الكرا واكو مركا إن أنا محود عيد ما ود هي إسرائيل هي حتى راس كبر كدكت مركا أنت وفشل عند أحمد وده هاي ديارده ما إيمان كرا مركا ديارده هو هس كمرة إنسان سوق كرده أنا كنا ونود قال مسعنيس أنت مركز مسهل إنه دولة فيرق Soomaaliya حاول مركز معية لصوب حدا. 72 ساعة يقول دنبيس إذا ما فرب بدن بأسدي بي سيدو كلو حاجة رسراكيل كهالله دوبلي أو شيء إنه صدق قلبه ودحين إنه عيدا ماذا عيجي يكون Jubbaland أي صاحبيه هنا ولا ليه هنا واحد بدن بكهالله. هيا. عيدا بدن أجره Jubbaland عيدا ماذا فيرق وسلاح جوجا. هيا. أما مالك استنى عيدا أفرت الاستحاد قلت أفرت الاستحاد عيدا حوجة. أنتوا بدن أفمدوا يدوبلي يوم حليرة جناح عبد الملك بوي جوجا. إنه حير واحد خلاف إنه دحين واحد بدن سكولي إنه مجرت. مركا إن دبعتها ولا بمبورنا يا. حركة إن ده يوجاس كدارضنا هاي رجع علن أو ده يورنوي هوية دارضو أو حير هوية أو هذا وحس هاي ودارضي هوية إنه حالة سياسة مش أسعته وجدنا أنا أركيني مركب باش قبيلة لقد جينا أنت وينك أسعته شال سياسة برا بالعوي دي تترنم تيمد لما نحس شيء هذا وذولي مركب حير هوية دارض وحسياسة تسكوها وعي جينا وده هذلان إيش يسكرنا فيها يقولنا بدنا قرر ديجينا قرر اللي قرره لسوي ماد marka xasan sheekh maxamed waa ninka qardha iyo waxaas ma biyala Puntland waa isku dhacsan yihiin marka ma garan karo meesha baasha loo wado qaabka loo siyaasaday qaabka qabiilka loo kicinayo xaaladda meesha la gaaro xaaladda Axmed Madoobe iyo magaalada Kismaayo maxaa iyadana ugu dambeeyay Kismaayo maanta waxa lagu leeyahay dad shacab ah oo gaari watay oo ciidamada Jubbaland ay ku laayeen in magaalada Kismaayo in laga bixi karin la soo gali karin oo sheegay Axmed Madoobe amarka dad baa u hoggaansan waayay tuulooyinka magaalada Kismaayo u dhadhow ee aadeen oo gaari qaateen 5 kamid ah way dhinteen
shan way dhaawacmeen 7 way dhimatay yaa dilay marka ciidamada Jubbaland ma kasbi u laayeen masaxabada ka fakatay amar waxaa jiray ahaa in macnaha magaalada aan laga bixinba Haye. oo Axmedow maadaama shakisnaa in magaalada wax soo geli kari wax ka bixi kara ay jirin marka dadkan waa loo sheegay markay baxayeen sida la sheegay waxaa la yiri ciidamada Jubbaland banaanka joogo waa isku dhici doontiin ama waxa dhibaato idin geysan doonaan ha bixinina marka shakiga Axmedow in saraakiil baxaan oo dad dhuuntaan ama dawladda lagu beero iyo waxaas iyo in wax la soo geliyo magaalada Kismaayo shaki badan oo qaba marka waa la diiday taas la diidanaa maanta ciidamada marka gaarigaas oo gaari caasi ah ay xabadaha ku shubeen marka 11 qof meesha ka badan dhibaato ka soo gaartay gartay waxaa isna ku sugan magaalada Kismaayo Ilyas Bedel Gaboose oo laftigiisu sheegay inuu golo wasiir dhawaan dhisi doono inkastoo uu sheegay in gudoomiyihii baarlamaanka maxaan ku dhahay maamulka uu hogaaminayo hadii bay ku soo mogol yahay laga xidho oo maamulka Jubbaland ay ka xidheen marka ayaga qoladaasi maadaama dawladda federaalka Soomaaliya xidhiir la leeyihiin Axmed Madoobe Kismaayo waa loogu soo galay waxaana u muuqata Axmed Madoobe inuu dhawaan iscasili doono ama uu ka tanaasuli doono arrimahan hadda uu ku jiro maxay kula muuqataa wallahi Axmed Madoobe inuu iscasila aniga ma aaminsani sida hadda ila muuqato Axmed Madoobe waa nin adag oo wuxuu yiraahdaa aniga magaalada Kismaayo raaxo kuma soo galin dagaal iyo dhiig aan ku soo galay markii aan ka baxo waxay noqon doontaa in dagaal iyo dhiig aan ku galo umalaymayo marka Axmedow umalaymayo inuu hadda dhahay wasacay ninka laftigiisa Ilyas Bedel Gaboose waa rag ciidamada hogaaminay laftigiisu waxa weeyaan isagoo meyd iyo dhaawac wato soo galay magaalada Kismaayo isagaan uga hooseeyay marka nin walba haduu soo dhaho bal ka waran waa runay hadda rag badan jiro hadda saraar oo kale rag asaga Axmedow la socod waagaas afayeenka raaskamoon ahaan jiro waa rag badan la barnaamijkaas ku jiray laakiin hadda inta badan Axmedow hadda gacanta ku haya ciidamada waana awood buu u sheeganaya hadda Ilyas Bedel Gaboose xaafado ku jira mana ka soo bixi karo ciidamada yaraa waardiyo meesha ku jiro dagaal inuu dhaca laga baqaya oo lama weerarin marka xaalku ma sahlano waxa way Axmedoobe si fudud kuma tanaasulay aad iyo aad baad mahadsan tahay sargaal sare oo waxa jira u hadlay ciidamada dalka Itoobiya oo sheegay in shacabka gobolka Gedo iyo iyagu iskaashanayaan hadii maxaan ku dhahay ciidamada dawladdu ay halkaas soo hujuumaan sargaalkaasi ka durdurdeynaya dalka Soomaaliya dawladdu kameena hadlin maxay kugu muuqataa horta sargaalkan waa nin Ethiopian Soomaa ha qorshaha oo wata Ethiopia ay wadato loogiya Ethiopia ciidamada Jubbaland ka barbar dagaalantay rabtaa oo markaasi ninkii Cabdullaahi Shimbir la dhahay ka soo degay Garbaharey saanad military faraha badan watay in markaasi asaga la weeraro hubka laga dhigo Axmedow wuxuu leeyahay ninkan hub badan oo markaa ninka iga haya oo had kor iga qaatay oo markii aan gudoomiyaha magacaabay haddana waxa way hubkii gacanta ku jira waxaan u baahanahay in gacanta laga soo bixiyo oo ninkaas meel laga saaro marka sargaalkan hadlay kuwa kala soo socdaba qorshooyin waaweyn ay Soomaaliya gudaheeda ka wadaan inkastoo waqtigooda gabaabsi yahay oo waqtiga rasmiga ay bixi lahaayeen ay soo dhowdahay haddana xaalkan ma sii socon doono Axmedow hadda isku hadlay Ethiopia oo yiraahdo Ethiopia garab isinayso Ethiopia Soomaaliya ma sii joogi doonto haddii sii joogtana xabada ku bilaaban doonto hadda ma sahlano Soomaaliya ciidan la'aan waa ciidanka waa la tiray waxa baraha bulshada galiya Soomaaliya ciidanka ugu faraha badnaa haysata waqtiga farmaajo 3 jubaar ciidan ka badan hadda haystaan si markaa u fiirisid ciidamada hadda Jubbaland la geeyo 3000 hadda ceelbur waxa ciidamada 4000 la wadaa dhankan gobolka Gedo ciidamada la geeyo oo tiro badan oo ay dhowr kun ah dawladda ciidamada koonfur galbeed ciidamada joogo galmudug waa aragtiin dhowr kun ay joogto dawladda ciidamada haysta dadka laga dhaadhicinaya waa ciidamada zaayida dawladda haysata oo aad u fara badan meesha la yiraahdo Ethiopia hadda isku dayda maanta in Soomaaliya gudaha ka lumaysato horta Axmedoobe iyo arintiisa iyo dawladda federaalka Soomaaliya ku dhamaanay taas waa dad Soomaalida oo iskhilaafay siyaasad isku haysto siyaasadan iska soo gabagabo dhinac u dhici doonta waana la shiin doona laakiin Ethiopia ka dhex faa'iideysta Axmedoobe iyo ninka la yiraahdo iyo xashiq dhaxdooda arin soconaysa ma aha arin waxa way fashil ku dambeyn doonto oo markaasi meel aan sii gaarin marka waxa la Ethiopian kala iska qabto ninkii maanta Ethiopian la safto oo Soomaali ku soo weerarna biriyo ka shalayna ugu dambeyn bal shidana waan u gudbi doonaa hadii aan bal dul istaagno dhanka iyo maamulka Somaliland Cabdiraxmaan Cira dhawaan qaaday madaxweyne inuu ka noqdo 5 sano soo socda waxa weeyaan wuxuu booqday deegaano ay ku nool yihiin dadka danyarta ah aad ba loola khuduucay ama loogu maartay hadii bay ku soo mogol yahay loo taageeray ha marka maxaa ugu dambeeyay dhanka Somaliland horta Somaliland iyo Djibouti nimanka la yiraahdo horta isku dhacsanay muddo 9 bilood ka badan xiriirkooda xumaa hadda Musabbix meesha ka baxay waxa jirto marka arrin isku soo dhawaansho ah oo xiriir wanaagsan ay ku sameysanayaan Cabdiraxmaan Cira oo nin jilacsan oo furfuran oo dadka
أنا وحكم مقلة هذا وحدونا يا مركي إن جبنا حامبا جيبوتي يحرك ودحي سومالا لسوعلي مثلا هذا سومالا مركي قناع سمينا يعني العقد قالها أنت قادنا جيبوتي لا تقال جيبوتي اللي قدر يجري الدنيا قناع سوق كان سجرين هذا مال سومالا مركي جيبوتي كل حرمة ماله قدر صار العقد ملا ومركز حوالها يركن العقد ما أدري كران وحق بنكيالا لو شو بيجري بنكاسا دبي مالك لو شو بيجري قناع سي لو شو بدل يجري أرنت مركو إس بدش هذا مركي حرك ندب وصل لابتو قناع سي لسكفره أي الدنيا مدك على حجر ماشان لراسيل على هاي على كبيح جري وجيبوتي بيها لقسين جري مصبي حد كله كحر على شاس وجيبوتي بيها قرسين جري إنه حير ما جرت يعني تاس مركو كحر دوما بدنا ومركا أنا أسقي وحس كل اسماء عمر قالوا حير هذا على شعرتي دوما كل دقالي يقبح حكوية من الدورسي مصبي حرد وكوات كات ماله وحكي كانوا أيوة قرن واحد مركا حرير كلاود هذا محلي الصومالي محلي الصومالي جيبوتي ولا سوعلنا سيده هرنا وحما هنا يعني نسبدل أنا كدعي waxyaabaha laga hadli doono waxa kamid ah dhabarjabinta Ethiopia Soomaaliya ku hayso iyo qorshaha la damacsan tahay in seel cilo ku qaadato waxyaabaha beenta la maleegayo haddii macir waxa loo maleynaa in isbedel keeni karo oo marka dhanka ay maxalida dawladda federaalka Soomaaliya in xiriir la yeelan doono ee dhanka ay maxalida Ethiopia xiriirka u jar doono inuu noqdo al-rajayna walo hadda Abiy Ahmed oo rafanayo xal ku xun yahay oo jawar siyaasad oo ku jiro haddana inuu si dhameystiro oo toos u dhameystiraan rajaynayna aad iyo aad baad u mahadsan tahay daawadayaal waxaan u wareegi doonaa dhanka iyo shide iyo waliba warar kale oo ku saabsan Jubbaland iyo guud ahaanba xaaladda dalka Soomaaliya barnaamijkan sidiisaba waxaynu kaga faalloon doonaa hadda kadib kagana faalloonaa hadduu rabbi idmo xaaladihii ugu dambeeyay ee Jubbaland iyo waliba dowladda federaalka ee Soomaaliya shidow haddii aan bal dib kugu soo noqdo Xamse Cabdi Barre waa kii hadlay meelo fara badan buuna ka hadlay Jubbaland laftigeedu waxa weeyaan ciidamo ba ku soo qulqulaya taliyaal baa hadlay maxaa ugu dambeeyay bal hadda Soomaaliya oo idin maxaa u xisaab badnaa maanta waxaa hadlay wasiirka gaashaandhigga ee dowladda federaalka ee Soomaaliya wasiir Cabdulqaadir ama ninka loo yaqaan wasiir TikTok oo warbaahinta la hadlay inkastoo uu ku hadlay luqadda afraxaweenka ama maayda uu ku hadlayay oo marka asoo gaashaandhigga joogu maayda ku hadlay miya asoo maayda meesha loo wareegay soo gaashaandhigga joogu maayda ku hadlay haye oo warbaahinta uu ku siinayo warbaahinta ku siinaya caadi ma maaydi hayaa turjumaya marka soo gool weydiin kartaa uu dhageysanayay hayaa turjumaya marka yaa turjumaya intii garanaysa intii meesha intii garanaysa way iska garanayeen inta kalena hay madax ba gundinayeen dadka madax gundinayeen kamid tahay goori waxaan u malaynay adigu hal iyo laba iyo waxaad ka taqaanay ninkan maxaa kaaga baxay warkiisa horta luqadiisa ma fahamta horta wax badan aniga ma fahmaayo marka lagu hadlayo qayban ka fahmaa marka aniga intaan ka fahmo waxay ahayd ciidamada la geeyay Ras Kamboni inaysan ahayn ciidamo lagu dagaalamayo Jubbaland ayeen kaliya ciidamo ammaanka sugayo oo wax dhibaataan aan Jubbaland u geysan doonin haddii la soo weeraro de marka dawladda ayada la soo weeraro laakiin wax weerar iyo salbalaarsi inaysan wadin ayuu sheegay wuxuu kale sheegay in dawladdu dalka mas'uul ay ka tahay oo gabi ahaan baayida maxalla Ras Kamboni ila Ras Casayr loo baahan yahay in ay mas'uuliyad qaado marka dawladdu meel kamid ah Soomaaliya haday ciidan geyso maxaad u geysaa lama dhigi karo yir taasna anaga shaqadeena tahay hadda ceel bura ciidamo u wadnaa yir mar dhaw aan soo afjarrabna kooxyaalka iska dagaalamay marka ceel burna maxay u geyseen aan la dhihi doonaa yir waa su'aal isweydiin mudan marka xaaladda meesha uu ka bixiyay wax dhibaato wax dagaal iyo wax colaad ma sheegin waa gartay marka ninkan hadlay horta afraxweyn buu ku hadlay waxaad moodaa qoladan inay awood badan ay meesha ku leedahay adu laakiin kugu adkaa luqadda kooga ana waxa yaran ka garanay waxa waaye maamulka Jubbaland sida ay wax u fahmaan iyo sida anaga wax ku wadna isma laha hadduu halka dagaal ka dhaco oo dhibaato timaadana maamulka Jubbaland ma mas'uuliyadda qaadaya Maxamed Maxamed hadalkiisa maamulka Jubbaland si maamul aqoonsiga kula hadlay una hadlin maamulka hormoona dhihin madaxweynaha hore dhibaato wada muna dhihin wuxuu maamulka Jubbaland waa maamul ka tirsan dowladda federaalka haddii halkaas dhibaato ka dhacdo ama ciidanka federaalka ciidanka Jubbaland dagaalaan maamulkaas mas'uuliyadda qaadi buu marka waxaan uga digaynaa buu Axmed Madoobe inuu ciidanka weeraro yaan uga digaynaa buu yiri hawlo badan ee iska socon dalka Soomaaliya waxaad moodaa siyaasadiisu inayna fadhiyin nin walbana soo asuu jecel yahay inuu wax u wada ayuu rabaa hadda xasan sheekh maxamed wuxuu tahay maalmada shalay wuxuu sameeyay guddiga doorashooyinka ayuu doorasho gala gudoomiye doorta gudoomiye ku-xigeenka doorta waxaana laga rabaa biri system baan uu sameeyay barnaamij uu sameeyay wixii barnaamijkaas doorasho ku qabanaysan inta saa ma doorasho u sameynaysan biri yaa loo doortay markaa waxaa loo doortay nin ka soo jeeda dhuusa mareeb in habar gidira iyo gudoomiyaha guddiga doorashooyinka loo doortay fahad ninkaas la doorasho qabo waa nin Axmed Cabdirashiid baa la waa nin aqoon-yahana baa la lahaa kole waxaan umalayn dee xasan u bayri soo door aniga soo celi barnaamij ii samee doorasho qaabkee marka uu
qaabkee markuu yiri xusdu wuxuu hay'adda wuxuu leeyahay si alla sida ay doorasho ku dhici karto dalka 70% dalka argixis haysata meelo kalena kama dawladda markaa ma qaataan si ay hadana doorasho qaban bule ilaa wuxuu yiri Soomaaliya dhaba 5 magaalo doorasho ka dhacdo doorasho qabanayna Soomaaliya dhaba 5 magaalo doorasho ka dhacdo shanta magaalo dadka cid ay doortaan iyo madaxweynaha dalka shanta magaalo ee muqdisho kamid ah cid ay doortaan iyo madaxweynaha ay doortaan ee Soomaaliya si maamulay cid kale loo joojin maayo ma fahanti wad barnaamij xashiiqa kaasa iyo dalka oo kala socda oo wax isku dhan u socda uuna jirin iyo xasan meel la ah durbaan garaacaya horta dalka ma mooda xasan sheekh maxamuud inuu maartay dalkan uu yahay dal burburay dal meel fog laga keenay ee dal maartay u baahan in la soo talaasulo la soo dhimriyo dal dhaqaale badan lagu soo bixiyay dadka la isku keenay laha dal ka soo bilaabay arta ka soo bilaabay Nairobi tagay muqdisho yimid saal isku wada mood xasan waxaad moodaa in uu dalka rabo inuu burburiyo warsha xasan markaa fiirso ana xasan markaa u fiiriyay wada xasan muwaadin ma wadani ma wadani muwaadin isku ma ah wadani ninkan dalka ma jeclo dadkana ma jeclo muxuu yahay xasan wuxuu yahay ku sheegi xasan waa nin danti raaca waaye xasan waxaad moodaa dawladnimada inay dhibayso dalku inuu dawlad noqdo xasan dhib bay ku tahay xasan wuxuu rabaa Soomaaliya oo meel aadan islaysa Soomaaliya maanta la islaayo maalin nin awood loo sheegtay maalin la isku diraa la jooga waa maalin la isu wada dhimrin lahaa la isu wada tanaasuli lahaa la isu wada iman lahaa war walaalo maxaa tabanaysaa war waxba inaga dhaxeeyay war cadowgeena ha u cararin bal adigu Ilaahay baan kugu dhaariyay xasan sida isagoo dal midaysan haysta ayuu ciidamo Jubaland ayuu ciidamo daaburay oo leeyahay Jubaland gal Puntland doorashadeed haduu awoodi lahaa ciidan uu diri lahaa laakiin de meel uu galo iyo meel uu ka geeyo ayuuna u haynin xasan marka dawladnimo ma rabo xasan aqoonyahanka Soomaaliyeed beesha caalamka iyo siyaasiyiintu way lahayn sidad ban istoos way lahayn la fahansiin waa maxay war xasan oo dalka waa dal iskaraada maalin ba awood soo korkoraysa dawladnimada haddii Afrikaanimo iyo kursi jacayl wax lagu raadiyo waxaan waa wax isla joogo oo si kala carari ee markasta afarta sano ee lagu igmaday ee dalka maartay ee lagu doortay ee u dhimri oo hal soo dhimriyo oo maartay hal meel wax loo wado ayaa la isku ogaa xasan wadanka burburinaya xasan wad ma santay waxaan rabaa inaan dib ugu noqdo ninka la yiraahdo gooniyo ninkan madaxweynaha adeed buu kala dul dhacay oo leeyahay dalkiiba kala fogeeyay degan maxay kugu muuqataa waa la yaab hadalka shida horta axmedow 15 sano jooga dadku wax u diiday waa muwaadin xasan sheekh oo mar walba 4 sano markuu joogana doorasho qabto muwaadin ma aha waa waxa la yaabani 15 sano ay axmedow jooga Jubaland hal marna sawirkiisa waraan Ismaaciil ugu dhaji musharax asaga bis lagu dhajiyaa qof la hadli kara ma jiro qof kala soo tartamo xabsi la dhigaa koob ku jiraan ninka shakula dhahay 5 saacadood xabsi oo ku jira masquul kor looga xiray heerkaas baash la gaarsiiyay waa ko marka de ninkaas haduu yiraahdo axmedow waa muwaadin xasan muwaadin ma aha hadoo dhil axmedow iyo xasan waa laba muwaadin ma waa yeelna laakiin maanta meesha uu ka bixiyay aan la yaab ugu noqotay oo dhahay ninkaas muwaadin markuu axmed madow is dhajiyo axmed madow waa muwaadin axmed waa nin Soomaali ah wuxuu nin Soomaali ku yahay haduu odagan uu garan waa isagu talaasay oo kursi xalid hadaan la kala roon roomada abalay hadaan la kala roonaan roomada axmed cimri buu ku jira asaga waa dhaqaaq kale 5 sano ha iska dhamaysto hadii ay keenayso burbur iyo dagaal in loo talaasulo xasan waa inuu talaasulo asaga madaxweynaha dalka asaga abi dalka ma asaga qaranka Soomaaliyeed midnimadiisa u dhaartay axmed midnimo wada axmed qabiil iyo wuxuu dhaartay rijoon yar buu dhaartay ee dalka muuna u dhaarin axmed ina burburtay in kala asaga muhiim ah waajibkiisa laakiin waajibka dalka haduu maanta burburo cidda la dhig madaxweynaha hadda soo laba siyaad bara dalka burburiyay oo ka tanaasuli waayo jabhada burbur ma de siyaad barqulis wuu diiday kursiga deeso lama dhaho maanta xasan haduu diido in loo dhimriyo cidii fogaata walaaltinimo gacmo qabul lagu soo weyn waayo asaga mas'uuliyadda qaada dalka haduu burbur xasan xasan sheekh muu diidin in doorasho la qabto laakiin siyaasadda la isku haya axmedow meeshan 15 sano joogtay dhaaf wadiid dastuurka Jubaland qaybta 7aad waxay qoraysaa in maxaa la in laba jeer oo soo sharxi kara musharax madaxweyne Jubaland laba jeerna waa la dhaafay hadda tii saddexaad oo sharxay marka siyaasadda la isku haya xasan maxaa la in asagana dantii soo fiirna axmedow dantii soo fiirna aan dhahno laakiin ninka 15 sano meesha jooga asaxsan
oo maxaa la xasan uu qaldan yahay taas de waxaan u arkaa wax si kale loo wado aad iyo aad buu mahadsan yahay daawadayaalkaasi wuxuu ahaa goonaya weliba shida oo ka horreeyay barnaamijkeeni faaqidaada nimaha ayaynu ku gunaanadaynaa intaynu dudun buu kulmi doono mid kamid la madaxda kaga tegayna sidaa iyo nabadgelyo